waxaa maanta xarunta madaxtooyada Puntland ee Garowe ka dhacay shirkii isniinaha ee golaha wasiirada dowladda Puntland waxaana shirkaasi shirgadoon ka ahaa madaxweynaha dowladda Puntland ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole waxaana ku sugnaa wasiirada iyo waliba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inta badan shirka golaha wasiirada waxa looga hadlayay dhowr qodob oo kala ahaa xaaladda ammaan ee gobolada Puntland dardargelinta nidaamka asxaabta badan ee gobolada ka socda iyo waliba sidii loo dardargelin lahaa howlaha wasaaradaha dowladda Puntland ee ka horyaala shirkaas markuu soo idlaaday waxa saxaafadda uga xog waramay wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland mudane Maxamuud Caydi Dirir oo sheegay in shirka golaha wasiirada looga hadlayay arrimo dhowr oo ku saabsan xaaladda dalka iyo danta shacabka Soomaaliyeed waxaa qabsoomay shirkii golaha wasiirada oo uu jeerganeeyay madaxweynaha uu joogay golaha wasiirada dhammaan ay joogeen iyo badankoodba iyadoo waliba ay jirtay maanta in wasiirro cusub oo la dhaariyay ay jireen maadaama rishafal la sameeyay dhawaan waxyaabay laga hadlay halkan oo maalin kasta oo sinaa laga hadlo waxa weeyaan waxyaabaha khuseeya danta dadka iyo dalka waa muhiim ka arintaasi inay dadweynaha reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dawladnimada naga dayanaya maadaama Puntland ilaa iyo asaaskeedii ay u taagneed in la helo dawlad Soomaaliyeed nidaam kasta oo soo maro oo lagu hagaajinayay dalka Soomaaliyeed in dawladdu ku soo noqotana Puntland ay tir dhaxaad u ahayd dadka reer Puntland waxaan u sheegaynaa golaha wasiirada maalinta Isniinta ay isu yimaadaan waxa ay ka hadlaan inay tahay danta dadka iyo dalka waxyaabihii maanta laga hadlay gaar ahaan waxa ka mid ah xaaladaha amniga ee dalku ku sugan yahay waa la falanqeeyay wasiirada ay khusayso amniga booliiska arrimaha gudaha ayaa ka hadlay iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobolada muxuu ahaa warbixinaha ka soo gudbaya wasaaraduhu ay ka helayaan muxuu ahaa waxa laga qabanayo xaaladaha ka taagan iyo wixii hore looga qabtay ayaa laga hadlay meel fiicanna waa la isla dhigay si ay agaasin u yeelato oo saacada laga hadlayay wixii markaa taagnaa iyo waxa laga yeelayo meel loogu ogaado waxa laga hadlay hirgelinta nidaamka axsaabta badan oo dhawaan la ansixiyay bishan September bilowgeedii la ansixiyay oo ah in loo gudbo nidaamka xisbiyada badan oo qofka muwaadinka reer Puntland uu xisbi furan karo la dooran karo oo wax dooran karo si aad la socotaan qaybo kamida commissionkii ama guddiga doorashooyinku ay gobolada marayaan hadeer oo ay gelin dadka ay ogeysiinayaan u sharaxayaan qofkii xisbi furanaya shuruudaha xisbiga lagu furanayo waxay yihiin warbixinta ay u baahan yihiin ay siinayaan waxaan kaloo kamid ahay qodobka lagu soo qaado saddexaad ugu muhiimsanaa dardargelinta shaqada wasaaradaha iyo ka qayb qaadashada qaadista dakhliga Puntland si aad la socotaan hadii adduunka dhaqaale xumaad waa iska jira oo kuleyl badan baa dunida ka socda kuleylka dunida ka socda qayb aynu ka nahay oo waliba inagoo muxuu ahaay dawlad yaro muxuu ahaay ku soo bilaabantay dawlad goboleed kala guur ay jiro hadda hayaan oo Soomaaliya ka jiro hayaankaasi waxyaabo badan keenay dhaqaalaha waxyaabaha marka lagu kobcinayo in dhaqaalihii la koriyo dakhligii la kordhiyo iyo in kharashkii la dhimo marka hoos u dhac u yimaado labadaas ay ku soo ururtaan ku celiyay mar kale hadii dhaqaale xumaad la dareemo dakhligoo la kordhiyo iyo kharashkoo la dhimo labadaas ayaa lagu daaweeyaa golaha wasiirada madaxweynaha iyo madaxweynaha ay joogaan maanta arinta aad baa wax isugu weydiiyay wax far badan waa la iska yiri waxaan rajaynayaa insha Allah in daawadeeda wax badan oo hoos la ka xariiqay maanta qorshayaal laga sameeyay insha Allah ay fuli doonaan dadweynahana ay soo gaari doonto muxuu ahaa faa'iido arinta laga helo haddaan dadweynaha xusuusiyo in yar oo kamid ah arintaas waxa kamid ah waxyaabaha dhaqaale xumaadka keenay inay kamid ahay hoos u dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga hoos u dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga waxyaabihii sababay ay ugu weyneedna ay ahayd oo kale oo hoos u dhaca keenay mucaawinooyinkii faraha badnaa ee dawladda Turkiga oo dhaqaale iyo lacag iyo mucaawino raashin ay isugu jirtay keentay in la raro markuu dollar badan yimi Muqdisho iyo koonfurta shilin Soomaaliga loo baahday dadna aad loo raray shilin Soomaaliga inay qayb ka ahayd dhaqaale xumaadka yimi insha Allah waxaan rajaynaynaa in marka la isticmaalo nidaamka guddigiiska ee dib loo xisaabtamay ee muxuu ahaay dakhli kordhinta iyo kharash dhimida in waxyaabo badan daawo loo heli doono mustaqbalka soo socdana insha Allah marba meeshii ay maraysay waxa soo kordha warbaahinta maxalliga ah iyo tacaalimiga intabana ka wasaarad ahaan waxaan rajaynaynaa inaynu ka wada xiriirno wacyigelin fara badan
iyo ogeysiin dadweynaha waxyaabaha ka soo kordhay waxyaabaha ka qabsoomay gudiyadii loo xilsaaray waxa ay ka soo qabteen oo ay golayaasha ku soo noqon doonaan toddobaadada soo socda haddii qabsoomida shirka golaha wasiirada ee isniinaha ahaa ayaa waxuu ku soo beegmaya xilli deegaanada Puntland laga hadalhayo nidaamka asxaabta badan iyo weliba furashada ururada siyaasadda waxaana dadka ku dhaqan deegaanada Puntland ay si aad u soo dhaweeyeen nidaamka asxaabta badan oo ay gacanta ku hayaan guddiga doorashooyinka Cali Cabdi Casiis warbaahinta dunida online magaalada Garowe.